markii dambe inaanu aragnay intii halkaas soo fadhiya dadkii soo yaacay lahaa war macruuba ku jirtaa way ku jirtaa way ku gubanaysaa ku laha marka ninku anu xanuun ku beenaan ogeyn nin miyar qabaan ku ogeyn gabadhan in maxaan ku dhahay ninku inay hayaan waan ogeyn xukunta inuu caruurta keena 8 subaxnimo ee beritoole ka bacdi caruurta meesha kuma aanan ogeyn dadku waxay isku haysteen caruur baa ku xidhanayo kuma xidhna ilaahu wa inna ilayhi raaji'uun waa arkaysaan dhibaatada ka dhacday halka aabaha afarta caruura ku gubay gurigiisii waan xayanagu jaarka ka soo horjeeda ayaanu nahay ka bacdi anagu ma aanan arkayn guriga markuu ilmaha ku xidhay caruurta ku xidhayay si oralka ayaan ku soo baxnay oralka markan ku soo baxnayna wajahada hore ka ololaysay meel loo maro waa la waayay ka bacdi caruurta meesha kuma aanan ogeyn dadku waxay isku haysteen caruur baa ku xidhanayo kuma xidhna markii dambe inaanu aragnay intii halkaas soo fadhiya dadkii soo yaacay lahaa war macruuba ku jirtaa way ku jirtaa way ku gubanaysaa ku laha marka ninku anu xanuun ku beenaan ogeyn nin miyar qabaan ku ogeyn gabadhan in maxaan ku dhahay ninku inay hayaan waan ogeyn saaka waxa xukunta inuu caruurta keena 8 subaxnimo ee berito hooyada caruurteedii weydayna waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo qalbigana Allah uga maydho ilaahayna maxaan ku dhahay samiriyo iimaan ha ka siiyo qalbigeeda ha dajiyo annagoo jaarkiya haddana maanta oo dhan oohin iyo sirciyo duxma kama naan bixin waxaan kala leenahay annagoo taasi nagu dhacday horena gurtan caruur baa ugu gubatay gurigan oo daarada laftahaanteeda ugu gubatay caruurtii dadamisku wuxuu yimid iyadoo meeshii maxaan ku dhahay la baqtiyay waa markii labaad halka uu caruur ku gubato inna la raaji'uun inna la wa inna ila raaji'uun halkan waxa ka dhacday maanta masiibo aad u weyn hooyo ayaa afarteeda carruur ku weyday ilaahay waxaan u weydiinaa inuu ilaahay qalbiga uga maydho masiibada dhacday mid kale maanta ummadda halkan degan waxay u baahan tahay wado sababtoo dandamis ma soo gaarayo maanta dhan hadii in masiibo kala dhacdo markaas waxaan leenahay hooyadaas maanta afarta u bada weyday ilaahay qalbigeeda ha uga reebo caruurta yar waxay haayeen caruur saqiira laakiin hooyadaas maanta dhibaatada inta la ku dhacmin baa dareemi karta waxaan leenahay ilaahay qalbiga ha kaaga maydho bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gurigan maanta waxa ka dhacday masiibo aad iyo aad u daran ilaahay naxariistii janna firdawsa ka siiyo ciyaalka saqiirna way haayeen naxariis ma baahna hooyadana waxaan ka codsanaynaa inuu ilaahay qalbiga iyo qulubta uga reebo una qaboojiyo sidoo kale xaafadahan ma laha wax wada amba u gaadiid u soo maro dandamisku wuxuu soo soconay ilaa 3 saacadood 4 saacadood maayirka degmada iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka codsanay si degdeg ah in xaafadaha wada loogu sameeyo laakiin waxaan imi guriga maxay tahay shufbeelay oo afar ciyaal ku shufbeeleen oo maxay tahay halkaasi maxay tahay hilibkoodii laga soo guray oo maxay tahay xataa macaan laf nool lagama qaadin waxaan ka wada laf nool oo maxay haytay oo hagaagsan laga asal lagama qaadin haga waxa laga ururiyay maxay haytay waxa laga ururiyay lafahoodii jiirkoodii oo wallahi wala qalbigu ka xanuunayo markaas qola qadar baa ku yimi hooyadoodii iyo maxay haytay iyo aabahoodna way kala maqnaayeen oo anu dadka aqoon baan ugu leeyahay markaas inuu caruurtana maanta keenay baa la sheegay inay hore u maqnaayeen waanoga marka wallahi wala caruurta samiri iimaan baan leeyahay xaafada maxay tahay caruurta ka baxday inuu ilaahay wax bedel khayr qabo ilaahay siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu joognaa waa halkii ay masiibadu ka dhacday waa gurigii afarta caruur aabahood ku gubay waa halka ay ku dhamaato xaafada October magaalada Hargeysa amba dusha sare ee xaafada loo yaqaan Libaaxyada halkan duhurkii waqtigii lagu jiray salaada duhur ayaa gurigan jiingada inaga dambeeya afar caruur ayuu aabahood ku gubay afartiiba waxa weeyaan waa way dhinteen Allahu naxariisto saqiirada afartu may gaadheen da'da 10 jirka waxay ahaayeen 3 wiil iyo hal gabadh marka inna lillahi wa inna raaji'uun balana maanta masiibo xun ayaa halkan ka dhacday ma dhaweyd baa loo qaaday caruurta meedkoodii dhakhtarka weyn hal waxa weeyaan ilmo yar ayaa ka badbaaday ilmahaasna waxa weeyaan waa ilmo gabadhu ayaa haysato naaska ayuu jaqayay markaas sida ay dadka ay noo sheegeen jaarku waxa weeyaan way kala maqnaayeen oo waxa weeyaan reer khilaaf u dhaxeeyay qoys khilaaf u dhaxeeyay ayuu ahaa marka maxkamadda ayaa amar ku soo saartay in caruurta waxa weeyaan aabahood laga soo wareejiyo oo hooyadood lagu wareejiyo hase aatee xaqii hooyadood caruurta lagu wareejin lahaa qadarkan ayaa dhacay aabahood ayaana runtii gubay marka hooyadaas waxa weeye afartii caruur waxa weeyaan maanta halkaas ay ku dhinteen
waxweyn laba geeri ayaa hooyada ku dhacday runtii waynu tacseedeena inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxweyn masiibadan sidoo kale waxaan farriin dirayaa xaafadani malaha waxweyn wax wada ah waa xaafadaha loo yaqaano isku raranka weeyeen haddii masiibo kala timaado waxweyn si degdega uma soo gurman karaan gaadiidka damdamiska oo runtii waxa laga yaabaa in 3 saacadood ay u soo socdaan xaafadan waa buurdha kadib ay saaran tahay dhammaan xaafadaha magaalada Hargeysa ee isku raranka loo yaqaano waxay u baahan yihiin in wadooyin loo sameeyo waayo shilka si degdega u dhacaya waxweyn gaariga damdamisku ma soo gali karo hadduu xitaa 5 daqiiqo ku yimaado meel uu soo galo ma laha balimka eeg halkan waxweyn ayuu saaran gurigan waxweeyaan cidi kuma jirin oo waxweyn gurigan waa laga maqnaa in aabahood 4 carruur halkan uu keenay boodfalka waxay xilli waxweyn kala go'aano salaada duhur lagu jiray marka runtii halkan masiiba ka dhacday dabkuna sideedaba kugu simi maayo runtii marka waxweyn xaafadaha isku raranka ah mas'uuliyiinta caasimada degmada Hargeysa waxaan ka codsanayaa in wado loo sameeyo way masiibooyinka dabka soo noqonaya sidee buu gaariga damdamisku kori karaa marka waxa weeyaan hooyada labada geer ku dhacday